السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشكو حران channel كيغا تكتور سجيا كسو دوادا walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan isi walba maqalkayga iyo muuqaalkayga idin soo gaariyo waa salaamantihiin maanta mawduuciga wuxuu ku saabsan yahay qoyaanka ama dheecaanka jaalaha ah ee soo ka soo baxa ama ka imaada saxaha ama fijeenaha maxaa sababa aad ugu mahadsan tahay aad ila socoto muuqaalka la garay una shishar garay asxaabtaada channelkana hadii ku cusubtaayna soo dhawow subscribe inoo saar hadii aan guud galo mawduuciga oo ahaa qoyaanka ama dheecaanka jaalaha ah maxaa sababa in ay ka imaadaan saxaha ama fijeenaha hadaba qoyaankan ama dheecaankan jaalaha ah waxa sababa waxyaabo tiro badan waxa kamid ah caabuqa afka minka ku dhaca ilaa iyo ilma galeenka ama uteruska afkiisa ama min afkiisa laga gaaro ilaa iyo afka hore ee fijeenaha caabuqa ku dhaca ayaa inta badan markaasi sababta waxaana ku dhaca infection bakteeriyada marka ay ku dhacdo waxa ay soo deeyaan dheecaan booran oo saad sheegtayba noqon kara ama loo arki kara in ay midabkiisu uu yahay dheecaan jaala ah cudurka jabtada ayaa kamid ah cudurada dheecaanka jaalaha ah lagu arko ama haweeneyda isku arki karto ama ragaba cuduradaas waxa kamid ah oo lagu arko dheecaanka jaalaha ah cudurka loo yaqaano jabtada midkaas waxa la socda balbal xiliga kaadida ama ee kaadinayaan ragga ama dumarkaba markay isku arkaan dheecaanka jaalaha ah sidoo kale waxa keena infection ama bacteria u dhaxaysa afka hore ee ilma galeenka ilaa ay saxaha afkiisa hore ama fijeenaha afkiisa hore bacteria ku nool way keeni kartaa dheecaanka jaalaha ah waxa kale oo kamid ah bacteria in ay keento saabuunta saabunada qaar ee lagu dhaqo ama lagu nadiifiyo farjiga infectionkaas uu keeni karaa marka si daran loogu dhaqo farjiga waayo saabuunta waxay leedahay kiimiko ay wadataa oo infectionkaasi u keeni karo tamar sidoo kale siin karo waa in saxan laga dareemayo cuncun siyaada ah qoyaankana kadib uu imaado markaas kadibna waxaa dareemaysaa ur far badan ama qarmuun ayaa dareemaysaa oo dhanka saxaha ah sida cuncun waa dareemaysaa cuncun زائد waa dareemaysaa mararka qaarna cambarka ama saxaha wuxuu ka dhigi karaa qalayl oo cuncun leh sababo kale way jiraan karaan oo keeni kara cuncunka ama qoyaanka jaalaha ah waxa ugu badan hadda infectionkaas keena ama kiciya saabuunta kale sidoo kale waxa badanaa meeshaasi cuncunka keenana waa saabuunada qaarkood lagu dhaqo farjiga sidoo kale nadaafad la'aantana waa ay keentaa haddii qofku uusan nadaafad lahayn waxay noqonaysaa bakteeriyada in ay kacdo cuncun iyo inuu imaado hadaba daaweynta iyo kahortaga waxa ay ku xiran tahay qofka markaas ku jira xaaladaas ama marxaladaas ka imaanaya qoyaanka jaalaha urka badan qormuunka ah in markaasi wuxuu sameeyo isticmaalo in la ogaado in nadaafadiisa heerka ay tahay kadibna waa la ogaan karaa waxyaabaha sababay sidoo kale waxa la siin karaa kahortag sidoo kale waxa la siin karaa waano ama advice ayaa la siin karaa sidoo kale hadii aad dareento cuncun hadii aad dareento waa in aad markaasi sameysaa biyo diiran iyo cusbo ama milix sa u taqaano inaad isku darsato oo aad ku dhaqato farjiga biyaha diiran iyo cusbada waxay ka caawinaysaa in bakteeriyada ay hore si aadama ay u sii gudubto afka ilma galeenka ay ka caawinaysaa hadii aad marka ugu horeysaba aad dareento aad ay ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan iyo sida wanaagsan aad igula socoto muuqaalkan hadii aad aragto fadlan like saar una share asxaabtaada aad ay u mahadsantihiin